gabadhani waa caddaan, waa gabar caddaana oo indhuhu buluug yihiin, way yar tahay, hooyadeed waa caddaan. waxay u timi hooyadeed, waxay ku tiri hooyo Faadumo Geelle Raage magacani muxuu yahay, xaggee iga yimi, muxuu yahay magacu, see aniga oo ma lay oran karaa. gabdho eeraaniyiina waxay leeyihiin Faadumo magacayaga weeye, waay sabab. bismillaah, salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. asxaabta sharafta leh, qiimiga badan, qaayaha badan, waa mar kaliya muuqaal cusub. bartan aad iga dheeganaysaana waa barteennii, waa bartaan kulmi jirnay, waa Bahrain Official. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. kusoo dhawaada meel idinka jecel yahay, walaalaha qalbiga sii share gareeya barnaamijka, asxaabta la wadaaga, channelka subscribe inoo saara. salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ha hilmaaminina. waqti salaa hadday idin tahayna soo tukada. intaa kadib Faadumo Geelle Raage, sidaad sheekada ku aragteen, bilowga ku soo aragteen, gabadha caddaanka ah iyo maanta, gabadha caddaanka ah iyo maanta xaaladeeda baynu ka sheekayn doonaa. laakiin nin oday ah, nin dhalinyaro ah aan ilaahdee, ayaa wuxuu ahaa dadkii nolosha adag ku soo koray. ninka aan ka sheekaynaynaa isaguna waa Faadumadan caddaanka ah, aabbaheed. ninkaasi nolol adag buu ku soo koray oo eedooyin iyo adeero iyo sheeko noocaasa oo adugu xumayn, hooyadii la xumeeyey iyo sheeko noocaas iskoris buu noqday. xamar buu soo galay. ninkaasi hadduu xamar yimi, ilaahay wuxuu ugu gargaaray dowladdii ilaa aadan cadde, ilaa cabdirashiid, ilaa iyo magaranaysaa allahu raxmado, maxamed siyaad barre, kulligoodba allahu naxariisto, way dhinteen. dowladahaas dadkii ka faa'iiday buu ku jiray. ninka waxbuu bartay, mutacallim buu noqday, gabar buu guursaday. Geelle oo Yurub looga yaqaano Jeelle, gabar buu guursaday, waxay u dhashay dalkii iyadoo joogtay, waxay u dhashay wiil iyo gabar bay u dhashay. ugu dambayn iyadoo uur leh buu ka soo tegey hooyo, maamadii dhashay ciyaalka. marka way isku dhaceen, isku dhacoodii way ka tagtay, gabadhu u guursaday. markii horeba iyadaa jeclaatay, iyadaa waxay ahayd qofta rabtay oo doonaysa, isaguna xitay waa xaaskiisii, laakiin jacayl la sheego oo buuran uma qabin. balse taa beddelkeeda iyadu reerkoodu ninkan waxay ogaayeen noloshiisii hore, waa loo diidanaa, xoog bay ku raacday. maalinkii kii labaad ay dhashay, kii saddexaadna caloosha ugu jiro, ayay reerka warkoodii inta ninkaana dareentay inuusan jeclayn, adugu nooc bay ka tagtay. Geelle marka isagoo iska ah nin iska tiiba talyaani, dadkaas tiiba talyaaniga ah buu iska soo tegey. dowladdii Soomaaliya Jaanis buu ka helay, aqoon kororsi buu u soo baxay, kors buu helay. Yurub buu soo galay ninkii. Yurub hadduu soo galay, jaamacad buu dhiganayay. gabar jaamacadda dhigata ayay iska heleen. gabadha waa gabar caddaana oo runtii ab iyo sinjide caddaan u ah. ninkan
faamilkiisu laftigiisu waa dad iska cadcad waa Soomaali laakiin waa reer cadde macnaha faamil cadcad buu ka soo jeedaa xoogaa gabadhi waa isbarteen gabadh aad bay u jeclaatay marka wuxuu yiri dhigayso gabadhay aniga muslim baad noqonaysaa haddii aad aniga i rabtid adiga si kasta ha ahaatee maanta waa aragnaa soo maaha gabdho Soomaali oo man cadaana la jooga ama si kasta ha ahaatee waa aragnaa soo maaha ama ku dhahaya waa muslimay sidii oo kale gabadhii ninkii dartiisay u muslimtay Soomaalidu qurbaha ma joogaan dad qurbaha jooga maaha ninkii gabadhii waa guursaday guri buu la degay jaamacaddii buu dhigtaa isagoo jaamacaddiisii iska dhiganaya bay guri wada degeen jaamacaddii bay ka qalin jabiyeen gabadhii uur bay yeelatay uur hadday yeelatay waxay dhashay gabar gabadhii ay dhashay waxa la tegey cisbitaalka bilowgii ugu horeysay ninka magaciisa iyo dee cisbitaalkii wixii adigu calaa kulli xal markii ilmaha la diiwaan gelinayay awal bay ku heshiiyeen waa gabar waxa caloosh ku jira waxa loo bixinayaa Faadumo Fatima baa loo bixinayaa gabadhii waxa dhacday in ay loo bixiyay magacii oo magacii aabaheedna ay qaadatay khalaas hooyadeed waa ina Anderson walaasheed Larson baa qaba dhinaca kaleeto waa maaragtay Yusufson ilma Sonkaas wey iyada laakiin waa Faadumo Geelle ninkii gabadhiisii isagoo oo dee iyo reerkiisii la nool oo 2 sano ay jirto gaari baa la dhacay saddexdoodaba isagoo wada xaaskiisii iyo isaga iyo gabadhii yareed gaari baa la dhacay xaaskiisiina dhaawac baa gaaray isagiina tii Allah u timi wuu dhintay Soomaaliya wuxuu kaga yimi 3 caruur kaga yimi halkana waxa u joogta Yurubna waxa u joogta gabar ninkii dhimay Allah u naxariiso dadka gaalada ahi waa balaayo waa dad mixnada aad wuxuu ilaaliyaa ninkan markiisii hore dawladdii uu ka mid ahaa Soomaaliya waxay haysaa sawir bay maamadu haysaa sawirkaasi waa sawir tees sare oo yar ah sawir weyn maaha gabadhii yarta ahayd oo ay dhashay waa gabar cadaana tintu waa tii hooyadeed midabku waa kii hooyadeed dhinac kasta waa hooyadeed indhuhu waa hooyadeed indhaheedu xataa waa indho hooyadeed oo kale wadataa qarsho buluuga hal dhinac gabadhaasi Afrikaan suul iyo qalla kuma laha ninkii dhimay Allah u naxariisto burburkii Soomaaliya dhacay marka intaan burburku dhicin Soomaali ma joogin wax Soomaaliyo joogtay ma jirin oo macnaha way ku yarayd Soomaalidu oo sidan de maanta Afrikaanka ugu badan waa Soomaali inta badan hadda inkastoo la soo gargaaray haddana Soomaali badan baa joogta wadanada sababtoo ah magaalo kasta aad dhex wareegtid
meelo yaryaroo hadda tusaale ahaan haddaan Sweden ka soo qaato waddankan aan ku noolahay waxaad arkaysaa magaalooyinka qaar oo Eritrean ay ku badan yihiin waa dhici kartaa dhowr magaalaan ba ku arkay baan u malaynaya laakiin dalka intiisa kale luuqa ka soo laabtid Soomaali maqaan malaha haddii la fiiriyo waxaan u malaynayaa si sax loo fiiriyo Soomaalidu waddanka dadka labaad bayba ka noqonayaan hadiisan shanaad iyo afraad iyo soo gelin haddii carab la isku daro ma aqaan carab haddii la isku daro carab markii la dhaho Ciraaq Falastiin Israa'iil maxay ahayd Masar waxaasoo dhan carab bay noqonayaan Suuriya Ciraaq isku dar saas laakiin waddan aad iyo aad bay Soomaalidu ugu badan yihiin Suuriya iyaduna soo jabtay hadda calaa iyo kulli xaal sidaas jawigu ma ahayn xaaladdu noocaas ma ahayn gabadhii way soo kortay intaan burburkii Soomaaliya dhicin bay soo kortay waxay soo gaartay 12 aabaheed shil inuu ku dhintay meesha aabaheed ku dhintay bay taqaanaa qabriga aabaheed ay taqaanaa khalaas way ogtahay aabaheed inuu dhintay waxa marka la yaab noqotay gabadhan 13 sano markay soo gaartay fasalka waxa la soo galay 2 gabdhood oo muslimiina Iiraaniyiin ah gabadhan Fatima la yiraahdaa ama Faaduma de ka doontid gabadhii indhaheedu waa baalkii waa buluug waa gabar cadaana ciyaalkan iskuulka hooyadooda berigii hore iskuulka iskala soo bilaabeen laakiin markaan waa la soo weynaaday su'aalo in la isweydiiyo baa la gaaray gabadhii waxa la yiri fiiri anna hana magacyadan adigu ay la baxaan dadka cadaanka Karina Kristina balaayadan waxaan adiga laguma dhaho magaca aa wadataa waa kaayagii muslim way Fatima muslim way muslim see u yahay aniga magacaygii way muslim iyo waxa gaala ma kala fahansana laakiin waxay tiri magacaan magac Iiraani way magac muslim way oo Iiraani maxaa dhacay may bay tiri may ayaday baa la dhahaa bay tiri gabadhii baa ku yiri ayaday aabahay hooyadiis Fatima la dhahaa gabadhu magacaas iyadoo cuqdadaas maxay tahay magacaan Fatimadan qof la yiraahdaa ma jiro iyada kaligeeda la dhahaa waxay isa sii barteen ciyaalku way soo kortay marka dhowr iyo toban bay soo gaartay waxay saaxiib noqdeen labadii Iiraaniyiinta xaafadahoodii bay timi ninkaasi hooyadiisu keenay Iiraaniga ay hooyadiisu keenay markaas dalka hooyadii waa waddankay ku dhimatay sawir baa laga qaaday hooyadii sawirka waxa ku qoran sawirkii baa meesha yaal waxa ku qoran sawirkii aabihiis baa u yaala iyo sawirkii hooyadii baa u yaala oo guriga u suran sawirka waxa ku qoran Fatima waana hooyadii gabadhu xaafaday tagtay jirtay muddo markay saaxiib la ahayd oo maaragtay ciyaal isla soo koray ay ahaayeen ayaa waxay aragtay xaafadii bay tagtay fadhigay fariisan jirtay mid baa qolka gashay aabaheed qolka aabaheed marka meel ka mid ay saaran yihiin labada sawir markaasay heblaayo waa iska ciyaalo dalaq bay qolkii tiri idima joogto iyaga kaliya xaafadda jooga markay xaafadda qolkii gashay waxay aragtay islaantan waa yeelka ah oo qamaarka xiran oo sawirkaas yaroo haafka ah oo Fatima magaceedii ku qoran yahay magacii aabahay aragtay macnaha awoowaha way taqaanaa
sababtoo ah ciyaalkaana waxa loogu yeeraa tan yar oo Iiraaniyada ah baa waxa loogu yeeraa heblaayo hebel hebel iskuulkay ka maqashaa moogta sida tan loo yiraahdo geelle oo kale ama raage loo yiraahdo raage la yiraahdo raaje la leeyahay raage la leeyahay iyadana magaca awgeed loogu yeeraa way aragtay in awgeed yahay waxay tiriyaa way qofkaana waxay tiri waa eeyadii aniga kuma oran eeyadii Faadma la dhaha way soo koreen marka waxbay kala garanayaan aabahooday u sheegeen gabdhuhu hadda ka hore waxay ku yiraahdeen gabadhan saaxiibka nahay Fatima la yiraahdaa waana cadaan marka wuxuu ku yiri waxa laga yaabaa aabaheed inuu muslim yahay Arab Iiraani magaranaysaa haddii la doono oo maaragtay Kosovo muslimiinta meelahaas baa maaragtay maadaama ay gabadha yari cadaan tahay inda buluuga isaga laftigiisu waa nin weyn wuxuu u qaatay inay muslimiinta meelaha degan Romania iyo adigu de wadamadan inay yihiin oo Yurubta inuu aabaheed yahay waana dhici kartaa sida Ibrahimovic oo kale noocaas inuu aabihiis muslim aabahee gabadhan aabaheed uu muslim ahaa marka wuxuu yiri waxaas dhici kara caruurtiisa uu sheegay gabadha waxay ku tiri marka magaca ayadii way laakiin adiga ku bixiyay hooyada iyo aabaha ii bixiyay way magacu muslim buu ahaa aabaha miya muslim ahaa way ku tiri muslimkan la sheegay kiristanka xataa kama daadegsana kama dhaadhacsana gabadha markaa ma garanayso sida sheegtay ma garanayso markaas waxaas ma ogaa ciyaalkaasaa marka tashuush ku furay gabadha tashuushkii bay la kortay hooyadeed bay waxay tiri hooyo aniga sidee lay dhahaa adiga lagu dhahaa Karina hooyada Christina aniga maxay yihiin magacyadan magacan muxuu yahay hooyadeed markii hore way ka qarisay aabaha oo dhintay baa ku bixiyay isagaana magaca la oran jiray wuxuuna kugu magac daray hooyadiis isaga hooyadiis baa la oran jiray Faatimo cunugta yari ma fahansana ilaa markaas muslim iyo kristan iyo ma kala fahansana iskuulka iyo waxa lagu dhigay laakiin waxa si fiican macnaha qofku waa inuu waxa fahansan yahay hooyadeed berigii aabaheed noolaa muslim dabcan muslimnimo ku guursaday laakiin markii dambe badeeday gashay waxa iska noqotay waxay ahaan jirtay bay dib ugu laabatay iyadu marka ma aha dadka diinta kristanka rumaysan oo aaminsan oo ma aha diin kale shaqo kuma laha ta muslimkana waaba inta gashay isaga tagtay waxa ma aaminsana macnaha gabadhii yarayd saasay waxay ku noqotay dhul ku dhaxal iyaduna hooyadeed waxay aaminsan tahay waxbaba macnaha waxba dunidan in cid abuurtay jirto iyo ma garanaysaa allihii ku sameeyay waxa ma oga iyada shaqana kuma laha ma fahansana because hooyadeeda sida awowheed hooyadeed dhalay wuxuu degan yahay macnaha markaa waxay joogaan koonfurta dalka awowheedna wuxuu joogaa ayadeed waaba dhimatay laakiin awowheed aabaha hooyadeed dhalay wuxuu joogaa waqooyiga meesha ugu dambaysa wuxuu joogaa muddo gabadhii waa soo kortay waxay gaartay 17 sano jir bay gaartay Soomaaliya burburkeedii waa dhacay waa la burburay dalka waa la soo gelgelayaa markaas xog looma soo gelin laakiin kisto waa la soo galay awowheeda u tagtay iyada iyo hooyadeed waxaa loo tegay
odaygii awowhii bay dee farxad la qaateen. awowhu waa waayeel marka, waa nin weyn. meeshaasay farxad kula qaateen. odaygu waa nin isaga laftigiisu meesha wax ka lahaa oo hanti badan buu lahaa, laakiin gabadhaani iskeeday u shaqaysataa, gabadheeda iskeeday u korsatay, iyadaa shaqaysata. odaygu carruur keligeedu ka dhalay, laakiin wax shaqa ah kuma leh, way ka go'antay. odaygu markaas ayuu oday noqday oo waayeel noqday, macnaha beyshin buu galay. shaqadii markaasuu ka fariistay. way u tagtay marka. awalla iyadoo yar way u tegi jirtay, oo tanoo yar oo la wado, Faatimo oo la wado, waa loo geyn jiray. odaygii bay waxay ku tiri, awowe waxaan rabaa muslim muxuu yahay? muslim waa maxay? islaam. Faatima yaa la dhihi, yaa wey Faatima, magacan muxuu yahay? waxaa laygu yidhi magacan, ilaa qoftii waa weynaatay, waa kortay, dadka oo dhan baa waxay ku leeyihiin magac muslim wey. hooyadeedna waa ka qarisa. wuxuu yidhi hooyo kuuma sheegin miyaa? iyada waxay haysataa Faatima, sababtoo ah eeraaniyiintaasi geellana ma yaqaaniin, raagana ma yaqaaniin. sababtoo ah geelle waa magac Soomaaliya. raage uurka hooyadiisu ku raagay, ama fooshii hooyadii markay umulaysay buu raagay. mararka qaarkood xataa waxaa loo bixiyaa wiilka gabdho badani ka horeeyaanoo wiil sidii loo sugay, alla maanta ma wiil bay dhalaysaa, wiil gabar marka dambe raage. waa raagtay niyow sidii lagu sugay, bimacnaa waa magac ka turjumaya macna. geelena waa geelade, waaba geel, waa garanaysaa. magacyadaasi waa magacyo aysan garan karin eeraaniyiintu, walaa ciraaqiyiin, walaa carab, walaa waxa ay muslim, walaa afrikaanka muslimiinta ah oo yima, waxaasoo dhan ma garan karaan. carabahoo dhan geelana ma garan karaan, raagana ma garan karaan. laakiin Faatima muran kama jiro. wuxuu yidhi awowe muslim, aabbahaabaa muslim ahaa, adiga aabbaha baa muslim ahaa, magacana aabbaha baa kuu bixiyey. raage iyo geelle magacaan oo dhan waa magiciisii. gabadhii wuxuu ka qanciyey in magacaani magac muslim uu yahay. aabba muslimku waa maxay bay tiri marka? muslim wuxuu yidhi waa dad maaragtay iska maaragtay adigu uun odaygaasaa u sharxay gabadha markii koowaad u sharxay. wuxuu ku yidhiba inaynu suuraysano maahan ilaa garan maynee, kolba odaygaa markii ugu horreysay wuxuu u sharxay gabadhan in aabbaheed la dhihi jiray, sida ay gabadhu sheegtay markii dambe, in aabbaheed la dhihi jiray. gabadhii ka soo tagtay aabbaheed inuu muslim ahaa ay fahantay. dadkii Soomaalida ahaa baa dalka soo galay, madmadowgii baa soo batay, carab ciraaqiyiin baa soo qaxay, eeraantii laftigeedii waa soo laba jibaarmatay, wuxuun baa dalka iska soo galay. gabadhii dugsigii sare ka baxday, jaamacad bay dhammaysay. gabadhii marka waxbarashadii markay dhammaysay, shaqay bilowday. dad bay baratay marka, asxaab bay baratay. inta asxaab bay yeelanaysay, waxay isbarteen wiil bay isbarteen muslim ah oo wuxuu yahay kuwii muxuu ahaa Senegal way isbarteen. waa muslim, shaqada isugu yimaadaan, shaqada iyadaa mas-uul ka ah. waa nin fiican oo aad u fiican oo aad u dabeecad fiican. shaqaalaha kale marka loo eego kulligood shaqadooda waa ilaaliyaan, laakiin waa nin shaqadiisa ku fiican.
waqtigii baa isbedelay xilliga waxa la gaaray qoraxdo ay yaraato sida xilliga hadda aan ku jirno oo kale kaba soo qaad bishu markii la gaaro 11aad 12aad waliba 12aad koowaad labaad inta dhowrka bilood qoraxdu waa isku soo yaraanaysaa waxa laga yaabaa qoraxdu inay soo baxdo 7 subaxnimo 3 galabnimo iska dhacdo على gebigeeduba 8 9 10 11 12 kowda labada saddexda in si sax mar ama adoon ba arkin bade joogu sa isu bedelo salaad buu ku xisaabtamaa ninkan salaad shaqaduna waa shaqo adag in laga baxo aan la rabin shaqadii waxa isa saaran casarkii iyo duhurkii oo labaduba ka tagaya duhurkii baa ku soo aadaya xilli maaragtay hadda marka adduunka hadda casri buu noqday maanta casri buu noqday adduunku oo mobilkaaga isaga xiranaysaa shidaba kuguma hayso waliba magaalada aad joogtid baa ku xiranaysaa hadda waxa jira noocyo kala duwan oo abab kala duwan oo macnaha lala soo dego muslim baro mid la yiraahdo iyo salaatuka iyo waa badan yihiin kuwaas aad la soo degaysaa waa fiirinaysaa xilliga shidaba kuguma haysto Allahu akbar isaga kugu dhufanaya mugaas ma jirin waxaas ma jirin niyo muga kelmadda muga gobolka Soomaaliya laga isticmaalaa muga koonfur waa laga isticmaalaa oo meelo gaar ah koonfurta barina waa laga isticmaalaa muga saan jeclahay hadaan qaldanayn waaya afkayga iska soo qabtay salaadii ninkaani waa baxayaa dhag waa la soo sheegay marka waxa la yiri ninkan shaqada uu ka baxaa gabadhii ninkaana waa nin wanaagsan shaqada yaa ka masuula Fatima awgeed muxuu ku yiri hadda ka hor wuxuu ku yiri aabahaaba muslim ahaa buu ku yiri muslim waa maxay ma taqaan ilaa markaa ma taqaan shaqo kuma laha muslim arab iyo afrikaan iyo diin inay tahay dad haystaan bay u taqaanaa laakiin wax kale oo muslim iyo afaara muslim ma taqaan macnaha ninkii bay u yeertay waa khayfadii waa mas'uuliyadii meesha hay'abay tiri hebel ee waran ma fiican tahay barwaaqo maalmahan dhaliishaada badatay xilliyada noocaas waad baxdaa shaqada 2 jeer baad ka baxdaa munaasibna aan ahayn xilli waxa jira la nasanayo oo kafee iyo shaay wax la iska cabayo xilli aan ahayn baad baxdaa maxaa dhacay sababtu maxay tahay maxaa kugu kalifay wuxuu ku yiri waa sax xilligaasaan baxaa waxaana u baxaa wax kale ma salaad baan u baxaa salaad waa maxay anigu muslim baan ahay salaad baan tukadaa xariifada hooyadeed salaada waa taqaanaya oo salaada aabaheeda baray iyada danaheeda raacatay mooyaane oo diin la'aanteeda isaga noqotay maahane salaada lafsigeeda faatixada iyo qayb ka taqaan hooyadeed oo xusuusan tahay qul huwa lay taqaanaa oo xifsan tahay quraanka qaar buu baray atiyaadka oo kale waa taqaanaa salaada Allahu akbar qaabka loo tukado in duhurku 4 yahay in subaxu 2 tahay in maghrib hooyadeed waa taqaanaa nin diinta ku adag oo aad ugu fiican baa gabadhan dhalay waxay tiriniyo bal muslimku waaba rabay inaan bartaniyo muxuu yahay muslim wuxuu aniga muslima diinteeda islaamka waxay ii sheegay faraysaa oo waajib ugu ah inaan tukado salaad subax baan tukadaa salaada duhur baan tukadaa casarkii baan tukadaa maghribkii baan tukadaa hadda waliba xataa maghribku wuxuu iigu aadan yahay xilli kafee xilligan kafeega cabayo buu maghribku xataa iigu aadan yahay ma garat
mar dhowna wuxuuba iigu aadi doonaa markaan ka baxo shaqada laakiin markaas xilliga kafeegu iigu aadan yahay waa xilliga ugu horreeya isa saaran yihiin waxay ku tiri salaadaas maxay tahay wuxuu yidhi waa waajib annagana saaran waa u sharxay inay maagtay rabtay shaqada inay laakiin waa meesha ay waxan oo dhan inay Soomaali tahay inay tahay gabadhani isfahm meesha sheekadu ka soo bilaabanaysa way markii dambe siday sharaxday ninkaas si wacan u wada gabadhan sheekadeeda qoraal bay ku samaysay buug bay ka qortay sheekadeeda gabadhu qof sahlan maaha Faadumo caadi maaha gabadhan ninkaas marka waa ninka boqolkiiba la oran karo 25 uu gabadhan arinteeda ka qayb qaatay Faadumo waxa dhacday marka wuxuu u sharxay salaada wuxuu u sharxay soon in laga rabo waliba waxyaabo badan marka waxa jiray asbuuci ama labadii asbuuc ba mar ba waxa jiray in la siin jiray cunno yar iyo macnaha adigu waa wax yar oo gaam feera ama waxa tiraahdaa wax yar hamuum jabis si kala hadaan u dhigo hamuum tirasha bay samayn jirtay oo cabitaan yar iyo roodi iyo bahal yar oo la gashado oo hilib yar iyo qudaar iyo bay soo dhigaan meesha waxa soo diidi jiray marka wuxuu dhihi jiray waa soomanahay soonkan muxuu yahay maalinkaasay ogaatay soonka salaada afaarahaasay ogaatay kadib waa tagtay gabadhii hooyadeeday u tagtay waxay weydiisay muslim yaa ah muslim wuxuu u sheegay dawlado dhan oo adduunka jira inay muslimiin yihiin waana intay ogeyd xataa in Yurub muslimihi inay jiraan wadankan hadda ay ku nooshahay iyo reerkeeda qaar muslimiin inay jiraan wadankan buu u sheegay muslimiintu inay cid walba noqon karaan gabadhii waxay ku tiri aniga Faatima in la yiraahdo soo ma aragaa aabahay baa muslim ah aabahayuu ahaa buu yiri wadankee ah gabadha wiish baa ku yaray marka ma garanaysaba hooyadeedna weligeed ma weydiin waa iska ordi jirtay hooyadeeda isku sii diisay hooyada haday u tagtay waxay ku tiri hooyo muslimkii waa arkay salaad bay leeyihiin aabahay aniga laftigaygu markuu noolaa waa tukan jiray bay tiri haye oo macnaha dee aniga laftigaygu muslimkaas waa noqday isaga dartiisaan u raacay jacaylkiisa laakiin kadib waa isaga tegey waa tukan jiray haye gabadhu waa weydiisay waa u sharaxday waxay tiri hooyo aabahayuu ahaa waxay tiri aabahaa wuxuu ahaa dal Afrikaan ah oo hadda burburay oo la yiraahdo Soomaaliya buu aabahaa bafna waa tiri waa ka qarin jirtay moogta bafna waa tiri sawir ay meel gelisay oo meel ugu qarsoonaan jiray oo haaf oo teesara intaas ah oo yara bay soo saartay waa meel ilaahay wax ka wado waxay tiri aabaha waa kan yaa oo hebel buuba u egyahay hebelku waa kii muslimka ah oo Senegalayska ah halla waa jirtaa
dadka caddaanka ah markii ay arkaan qof Gaanaysa, qof Marookiyaana ah, qof Camerooniya, qof Soomaaliya, saa markay u fiiriyaan macnaha farqi xoogaa yar inuu jiro waa arkayaan laakiin Afrikaan buu u yahay macnaha waxba Soomaalida ha xanaaqinina carab iyo sheeko la ma jirto markay ku arkaan dadka caddaanka ah madow lee la tahay adiga Afrikaan baa u tahay fahamsan midabkaaga markay arkaanba waaxid Afrikaani bay ku arkaan in Afrikaan iska tahay qofka Camerooniga ah iyo adiga wallahi waa Afrikaan laakiin xoogaa farqi baa u dhaxay because sababta oo ah iyaga Swedishka Italianiga iyo ma garanaysaa Jarmalka iyo xoogaa waxba u dhaxeeya haddaad sii gaartid maxay ahayd nimankan la yiraahdo Portugiiska iyo Spain innaga markaan saa u eegno caddaan ninka caddaanka ah waan iska niraahdaa laakiin waa kala duwan yihiin sumaya ka asxaabta hay tintooda indhahooda midabkoodu aad buu kala duwan yahay laakiin innaga farqi badan inooma kala laha gabadha saasoo kale way marka kan waaba kiibay tiri sawirkii waxay tiri isii sawirka aabahay maxaa ii tusweyday awal waa adaan kuu hayay bay tiri sawirkeedii bay meel dhigatay awoowaheed taladiisii iyo wixiisii baa iska soo gabagabowday nin hantilana waa ahaa gabarna wuxuu ka dhalay hooyadeed odaygii bay aadeen odaygii baa markaa wuxuu noqday howlgab kasi awal wuxuu ahaa howlgab arriminaya laakiin wuxuu noqday howlgab aan arrimin karayn buu gaaray ku dhawaaday khalaas taladii odayga iyo wixiisii waxa la wareegay gabadhii iyo hooyadeed baa la wareegay odayga marka in loo yimaado oo laga warhayo sheeko abu gaaray maadaama uu halkaa marayay tani waxay tiri aabahay gurigan cidlada iyo meesha cidlada waa ka kaxaysanaya ana kaxaysanaya aabaheed waa la soo wareegay waa Faatima aabaheed Faatima awoowaheed waa la soo wareejiyay waa la keenay meeshaas waxay heshay gabadhii maadaama ay la wareegtay xaaladiisii akoonkiisii iyo shaqadiisii iyo hantidiisii oo dhan bay mas'uul ka noqotay awal laakiin intii uu arriminayay wax shaqo ah kuma lahayn markaanse iyada ka amar bixisa maamadu marka qof iska shaqaysatay ahayd laakiin qof maaragtay aqoon saa u sii badan leh ma ahayn gabadhii waxay noqotay gabar aqoon leh oo maamulo ah mas'uul ka ameel gabadhii waxay ogaatay aabaheed inuu ninka sawirka la yahay kadibna waxay ogaatay aabaheed inuu muslim ahaa wixii hooyadeed ninku wuxuu u sheegay baa hooyadeedna u sheegtay salaada inay jiraan soon inay jiraan hilibka aabaheed inuusan cuni jirin doofaarka waxaasoo dhan oo muslim ah hooyadeedna waa u sharaxday oo waa u sheegtay wala waysan iyadu rumaysnayn wixii qaadan berigii u joogay bay ka qaadatay intii kale aysan qaadan adiga calaayi kul xal si kasta ha waxa dhacday gabadhii awoowaheeda la soo wareejiyay meesha loo soo wareejiyay gabadhii baaritaan waxay ugu dhawaaqday waa ayo Soomaali waa ayo Soomaali waa ayo Soomaali waxay ogaatay dad Soomaali la dhaho inay jiraan kadib waxay ogaatay ninkii Senegaalkii bay dadka ka jeclaatay dadka ka soo dhaweysatay maadaama uu aabaheed la diinahaa lana dad yahay waa Senegaaliya maaha Soomaali aabaheed maadaama uu isku dad yihiin aabaheed maadaama isku diin yihiin dadkii bay ka jeclaatay rag baa waxay damcin jireen dad baa damci jiray inay ku diraan laakiin maalinkaa salaada fasax bay u siisay maalinku u sharxay maadaama aabaheed muslim ahaa maalinkii horeba fasax bay u siisay inuu leeyahay ninkani dhowr fasax wax diintiisa khuseeyana ay tahay xilligay soo aado inuu tukanayo waliba waqtigu way isbedbedelaya sheeko noocaas ah iyada iyo isaga waxay isla og yihiin way kuwii markay weydiiyaanna way u sheegtay
ninkii bay waraysatay marka dadkii bay ka jeclaatay kusoo dhawaatay soomaali wuxuu yidhi waxaan aqaanaa nin soomaaliya ninka magaciisa bay aragtay geelina kuma jiro raagana kuma jiro waxay raadinaysaa iyada waa geelahan iyo raagahan wereershay oo bini aadan la dhahaa adduunka uusan joogin iyada maaha ma fahmaysaa faatimadase kan sinikaaliga xataa waa yaqaanaa carabkay la kulantaa waa yaqaanaa qofkay muslim u garato waa weydiisaa faatima magac muslim weeye haa adiga muslim baa tahay waa la weydiiyaa may maahi maba taqaanba muslim aabahay baa muslim ah waxay ku tiri marka soomaali baa aabahay oo soomaali weeye soomaali geeska afrika weeye buu yidhi waxaan aqaanaa mid soomaaliya aqaanaa waxay tiri itus inaan arkaan rabaa dad soomaaliya xiisaa waxa ku haya maadaama iyada aabaheed uu soomaali yahay inay qof soomaaliya aragto maalinkii dambe waxay tiri gabadhu sida ay de ka sheekaysay ninkii soomaaliga habaa loo keenay nin soomaaliyahoo macnaha iska ragga maaragtay iska caddaanoobay ah oo isagu waddan kale inta ku soo jilba murxay talyaani tiba talyaaniga ku soo jilba murxay isagoo yar inta yimi nin weyn ku noqday oo kadibna waddankan kale u soo wareegay kii bay aragtay ninkii bay la kulantay aabaheedu u eegaya marka ninkan u keenay iyo isaga farqi weyn baa u dhexeeya yes waa waxa aniga midabkaygu isu bedeli waayay aabahay tintiisu waa normal sankiisu waa iska normal okay ilaa ninkan senegaalka waa nin ka bedelan aad uga bedelan ninka waxay tiri soomaalida xaggee degtaa soomaalida maxay tahay soomaali maxaa ka rabtaa buu yidhi adiga waxay tiri anaa soomaaliya jees iyo qosol qaab waxay tiri magacayga faadmo geellaa la yidhaahdaa magaca jeelle ma ku jiraa soomaali waa fiiriyey waxay tiri uu ila yaabay geella raage aad buu u qaadan waayey wuxuu u qaatay inaan ku ciyaarayo ninkii wuxuu ku yidhi niyo bay maca salaama niyo gabadhan waa igu ciyaaraysaa nabaday macnaha waaba iska tegeyba ninkii waxay tiri intii soomaali buuggeeda inta ku qoran intii soomaali aan la kulmay waa qofkii iigu yaabka badnaa sababtoo ah waaba iska tegeyba wax allaale iyo wuxuu u qaatay magacaasna ma garanayo gabadhan walaalay leedahay ogaada gabadhani walaalay leedahay aabaheed dhalay oo aabaheed soomaaliya kaga yimi waana heli doontaa la socda sheekada marka ninkan waa ka tegey gabadha soomaalidu waxay tiri ma dad noocaas ah macnaha ilaa eeg qofka soomaaliga ahi waxa uu ka bixiyaa markaad soomaali fiican tahay hadhow dadka kaa dambeeya oo soomaalida aniyadda waxa kaga jiri doonta maxamed oo nin soomaaliya ah nin aad shaqadiisa u ilaashada wanaagsan fiican been aan aqoon aad u wanaagsan furfuran dabeecad wanaagsan buu ah haddaad tahay laakiin nin dabeecad xun shaqadayaca bela ah khaa'in ah waxadaya tuug ah qofkii ku bartay wuxuu u qaadanayaa maxamed soomaaliya haa caliya baa u yimi soomaali baa tahay haa maxamed baa niyadda kaga jiraba totally wuxuu u arkaaba reerkii khaa'imiinta ahaa weye gabadhii waxay tiri cuqdadaas ay gashay soomaalidu inay dad noocaasa yihiin senegaal iyo wixii oo dhan bay tiri saasaan usoo qaataa maamka waa bartay soomaaliya meesha ku taal senegaal iyo soomaaliya inta isu jiraan waa arkay waxaan xumaan ka fahmay bay tiri marka dadka soomaalida maalin dambe ayaan waxaan arkay bay tiri gabar qolaa waxay ii keentay bay tiri dadka qolada shaqada u raadisa baa waxay ii keentay shaqaa dad baa laysoo bandhigay markaasaan waxaan ku arkay Fatima magacii
baan ku arkay Faadumo weeye waa gabar Soomaali Faadumo loo bay aragtay dad bay u keeneen waxaan kala baxay bay tiri gabadhii waxaana u gartay in ay tahay qof magaca dambena waa garan waayay bay tiri oo ku sii xiga oo ka sii dambeeya waa garan waayay shaqadii waxay tiri interview baan la yeeshay interview aan la yeeshay macnaha su'aalaan weydiinayaa bay tiri imtixaan baan ka qaadayaa su'aalaha aan weydiinayo boqolkiiba 90 Soomaali baan ka wareysanayaa aniga bay tiri shaqadeeda iyo say u qaban doonto iyo afaaraha maas because markaan iri magaca ay igu tiri Faatima la yiraahdaa hebel hebel baan waxaan ku bilaabay wadankee ka soo jeedaa Soomaaliya imtixaan ba lama aadin bay tiri aniga wax imtixaanaba lama gelin sheekadaydii oo dhanba waxay ku soo ururtay wadanka Soomaaliya see ku burburay maxaa dhacay adiga hooyada Soomaali miya aabaha Soomaali miya ha aniga laftiga Soomaali baan ahay Faatimo Geela la yiraahdaa gabadhii Soomaalida ahayd waa yaabtay way qosashay aad bay u qosashay bay tiri markaan iri Faatimo Geela la yiraahdaa Faatimo Geela raage waa waxay tiri gabadhii madaxa isqabatay say ku dhici kartaa in lagu dhaho aqoonsigayga markaan arkay bay tiri inay faraxsan tahay oo qoslayso aqoonsigayga aan soo saaray inaanan been u sheegin qof wax baratay oo akhris taqaan oo aad u fiicanna way ahayd bay tiri markii horena shahaadooyin wadatayba aqoonsigayga waan u soo saaray waa tusay bay tiri way ugu soo booday bay tiri marka gabadhii way ugu soo booday waa ay dhununkatay sababtoo ah waxay tiri waxay ku faraxday inaanan been u sheegin oo magacayga Faadumo Geelle raage ay ku qoran tahay aqoonsigayga sawirkaygiina muuqaalkaygiina uu yahay iyadoo yaaban oo aan is ogeyn bay tiri way ugu soo booday ugu dhigtay waa ay dhununkatay bay tiri bimacnaa shaqada inay ugu timi walaasheed waxay tiri xaqiiqdii bay tiri wax ma weydiin imtixaankii loogu talagalay inaan shaqada wax ka weydiiyo wax ma weydiin isla markiiba waxaan u ballamiyay bay tiri qof caawiya oo shaqada tusa heshiisna waa la galay bay tiri gabar wax baratay oo cajiib ah